بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن وعن ملك استأذنك جوكتان داودياشا قيمها يقايا عليك سودو هذا برنامج كان أنا أقوم قعدرني عدك هذا كوعي البح وبرنامج أنو كو إجنو إسلام مركا أنو دتك كوي دينو أركتيد وذا يسيد وأركان وحي مركا ذلك الصومالي كسعودة. برنامج كان حكام دي هاي برنامج هذا وحنا مع صدق بدن وقولنا حسابها بدن كسعودة روكتي ده فيسبوك إسلام مركا أنا دت بدن أي كل يبتان عدك هذا. barnaamijkan waxaanu ku soo qaadanay 17 bishan oo aan dadweynaha soo bandhignay siday u arkaan siyaasiga muranka badan dhaliyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo aanu ku weydiinay in ay u arkaan inuu noqon karo madaxweyne. طبعا انتنا النتيجه دي نسو غدبنين وكما Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa siyaasi Soomaaliyeed isla markaana dad badan ay aad u yaqaanaan sababtana waxa weeye waa siyaasi baraha bulshada keena arrimo xasaasi ah isla markaana laga dhehsan karo inuu yahay siyaasi xogaa yara xanaaqsan isla markaana mararka qaarkood maciin bada reetolkiis iyo qori isla markaana waa siyaasiga yani raba inuu Soomaaliya madaxweyne ka noqdo laakiin hadana ku faana ama sheegtay inuu asaga xamar leeyahay shafkan u garaacdo anagu og siyaasiga inuu ku dhashay tuulada Buulaburde mise Barde adiga beledweyne tan u dhow طبعا Cabdiraxmaan waa runtii siyaasi aan la dhayalsan karin miisaan cunusna leh waxaana ku ogaan doontaa natiijada dadka ay soo gudbiyeen barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa natiijada iyo cod bixinta sidee u dhacday ee beejkii ka dhacday sidoo kale gabagabadii gunaanadkiina waxaan siin doonaa talo iyo tusaale Cabdiraxmaan wuxuu soo noqday xildhibaan wuxuu soo noqday wasiir wuxuu soo noqday la taliye madaxweyne oo xasan sheekh ayuu ahaa dabcan waa nin siyaasadda Soomaaliya wax badan koog isla markaana arrimo badan lagu eedeeyay oo kamid tahay asaga iyo ra'iisul wasaarihii hore inay badda Soomaaliya xogaa gacmeeyeen oo Kenya wax ka qaateen ilaahay ba xaqiiqda yaqaan laakiin wuxuu u muuqdaa siyaasi jecel inuu dalka iyo dadka wax u qabto laakiin se mararka qaarkood xanaaqsan yahay oo ka tambato aan soo laabano intaasi waxoogaa waa fikirka iyo aragtida aan anigu ka akhristay Cabdiraxmaan dabcan waa iga aragti duwanaan kartaa aragtidaadana waan soo dhaweynaa macnaheedu ma hadaan ka aragti duwanaa ama adiga aragti duwan tahay inaan is ayno oo aan isku xanaaqno cod bixintu wuxuu dhacday sidan waxa codaysay 15,700 oo qof wadada aad iyo aad u tira badan runtii marka loo eego cod bixinaha ka dhaca baraha bulshada hadii Facebook-gayga uu caan ka ahaan lahaa dalalka مثلا European-ka ama Mareykanka oo kale waxa lagu soo qaadan lahaa warbaahinta ayaa lagu soo qaadan lahaayo dadka codkooda lama dhayarsado 10,100 qof ku dhawaad way diideen waxay dhaheen uma qalmo inuu madaxweyne dalka ka noqdo siyaasi xanaaqsan halka 5,500 oo qof ay yiraahdeen maya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waa haliyay waa ninka badbaadin kara Soomaaliya marka aanu barsanti ahaan u kala qaybinana boqolkiiba 65 way diideen Cabdiraxmaan waxay yiraahdeen dalka uma talin karo madaxweyne kama noqon karo hadaan ayuu ka ridaya ayuu hadalkoodu dhacaya halka boqolkiiba 35 ay yiraahdeen madaxweyne uu noqon kara taasi waa fariin cad oo ku socota Cabdiraxmaan siyaasiga waxa la rabaa shacabkiisa inuu dhageysto 5,700 oo qof dad yar ma ahan waxa kale xisaabta ku darsataa hadii shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha Soomaaliya qof walba uu maanta awood u lahaan lahaa internet inuu galo oo cod bixinta ka qayb qaadan lahaa waxa dhici karta natiijada inay ka sii badnaan lahayd kana sii duwanaan lahayd laakiin hadda waxa codaysay intii xogaa smartphone ka haysatay ay yara ladnayd oo internet ka helaysay ayaa codaysay dabcan Cabdiraxmaan waa siyaasi waa bashar qofka bini aadankana mararka qaarkood go'aamo khaldan iyo erayo khaldan way ka dhici karaan taasi aad kuma lahan laakiin waxaan u sheegaynaa inuu isku dayo inuu caradiisa xakameeyo isla markaana uu shacabka Soomaaliyeed qanciyo iskana daayo erayadan xanafta leh oo hawada dadku marinayo oo leeyahay aniga Muqdisho iska leh qori ayaan wax ku qaadaya 30,000 taangi ayaan cunay cirka ayaan soo dumiyay waxaasi wax ma tarayso waxa loo baahan yahay hadii lagu cadaadiyo hadii lagu xiro inaad dulqaad yeelatid oo dalkaada badbaadisid siyaasiyiinta aad ku dayan karto waxa kamid ah madaxweynaha South Africa Mandela wuxuu ahaa siyaasi runtii siyaasadii uu qaatay ay dadka adduunka la yaabaan ilaa haddana buugaag laga qoro isla markaana tusaale u ah horumarka iyo shakhsiyadda siyaasiga qofka la yiraahdo 27 sano ayuu xabsi ku xirnaa
sawiro 27 sano ayaa la cadaadinayay waa cimrigiisa marka la qaybiyo waa meel kamid ah 3 meel markii cimrigiisa loo qaybiyo Mandela meel kamid ayuu xirnaa 30 sano waa cimri aad iyo aad u weyn waa inta Soomaaliya ay burbursaneed 27 sano ayuu xabsi ku jiray 3 sanana waa intuu isu diyaarinay inuu dalka madaxweyne ka noqdo Mandela wixii ugu horeeyay uu ku baaqay maxay ahayd cafis in la saafiyo waana tan keentay in South Africa ka badbaado dagaal ahli ah isla markaana ay noqoto wadamada ugu horumarsan adduunka طبعا siyaasigaas waxaanu leenahay adigana ku dayo oo iska daa xaradan oo iska daa xanaaqan oo iska daa qorigan aad ka ordaysid maanta Soomaaliya meesha ay marayso waxay u baahan tahay qof ka sii qaada uma baahna qof dib u celiya 91 dagaal dib ugu celiya ahli ugu celiya xabad ku faana shacabka Soomaaliyeed taama rabaan waana tan keentay Cabdiraxmaan adoo raaliga ah in ay dad badani siyaasadda la dhacsaneen markii aad madaxweynaha isu soo sharaxaysay khudbadii aad jeedisay runtii waxay khudbooyinka ugu fiican waxyaalahana waxay ahaayeen shacab badan ah ku kasbatay laakiin nasiib daro markii dambe oo aad madaxweyne ku guuleysan weysay wasiir noqon weysay de waxaad noqotay siyaasi xanaaq waxa la taliye ku noqday dad ayakan xanaaqsan oo mar walba idaacadaha la soo taagan hadii aan wax laga bedelin 91 baa lagu laabanaya war 91 hadii lagu laabto oo xamar ay burburto oo dadka islaayaan yaa adiga kaaga dhib badan waxaad ogtahay in dalkan Soomaaliya maanta xabad u baahneen wuxuu u baahan yahay qof degan qof ceelka ka saara qabyaaladii qabiilna joojiya daawadayaasha qiimaha ee qayaale inta iyo aan mar kale ku kulmi doono barnaamij kale oo xiiso leh waxaan idinka tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh